السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامجكينا حق عافمات برنامجك maanta waxaan kusoo qaadonaa mowduuc muhiim ah kaasi oo calool istaag ama calool fadhi wax loo yaqaano calool istaag ama calool fadhi wuxuu ka mid yahay mid ka mid ah xanuunada ugu badan oo dadku ay ku booqdaan isbitaal maadaama ay yaraanaydo qofka inta jeer uu suuliga geli jiray ama uu saxaro jiray inta badan constipationka waxaa ku lifaaqan calaamado kale sida madax xanuun kor xanuun iyo qofka oo dareemo dhabar xanuun tiro badan taasina ayaa keentay in qofku isbitaal oo booqdo haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha keeni kara calool fadhiga iyo sidoo kale waxyaabaha lagu xalli karo ama laga hortagi karo qodobka ugu horeeya ee calool fadhiga waxyaabaha sahli kara ama keeni kara waxaa ka mid ah kow qofka inuusan qaadan waxyaabaha ay ku badan tahay qolofta ama xarkaha ku badan tahay inta badan cunooyinka qaar ama qudaarta qaar waxay leeyihiin qolof ama xarka badan ayay leeyihiin oo fibers afka lagu yiraahdo xarkahaas ama qolfahaas tirada badan waxay saacidayaan in saxaro jilacsan ay samaysanto oo mindhiciradu ay soo saaraan dheecaan badan iyo biyo badan soo saaraan taasina ay si sahlan u keento in saxaro jilcan qofkii uu dhigo waxyaabaha qolofta leh waxaa ka mid ah dalagga ka soo go'a waddankeena sidoo kale waxyaabaha qudaarta ay u badan tahay ayaa la sheegaa inay ka mid yihiin waxa labaad ee keeni kara in calool istaag badan uu yimaado waa in qofku uusan isticmaalin biyo ku filan maalintii ilaa 3 litir ayaa la doonayaa qofku maalinkii inuu isticmaalo haddii intaas in ka yar qofka uu isticmaalo waxaa dhici karta in calool fadhi uu ku yimaado ama qofka uu ka cabto markasto maadaama ay yar tahay biyaha inta badan mindhicirada ku dhex soconaya ama dheefshiidka dhex soconaya qodobka saddexaad ee keeni kara calool fadhiga waa in qofku uusan sameynin exercise ama socod uusan sameynin ama dhaqdhaqaaq badan uusan sameynin haddii qofka dhaqdhaqaaqiisa uu yaraado exercise badan uusan sameynin waxaa dhici karayda in hoos u dhac uu ku yimaado dheefshiidka sidoo kalena mataqaanaa peristalsiska ama dhaqaaqii saxarada ay hoos u dhacdo qodobka afraad waa daawooyinka qaar dadka isticmaalaan waxay keeni karayaan in mataqaanaa calooshii ay istaagto sida daawooyinka loo yaqaano opioidska anti-acidka antidepressantga daawooyinka iron-supplementiga waxay kuwaasoo dhan keeni karaan in caloosha ay istaagto xanuunada qaar ayaa keeni kara sidoo kale xanuunka loo yaqaan IBS ama irritable bowel syndrome ayaa keeni kara sidoo kale kaadi macaanka sidoo kale xanuunka loo yaqaan hypothyroidism oo internetka hoos u dhaco iyo xanuuno kale oo ku dhaca neerfayaasha waxay keeni karaan calool istaag qodobka kale ee muhiimka inta badan waa in qofka uu ismoogeysiiyo in uu saxaroodo maadaama saxaro ay haydo qodobkan qodob muhiim ah waa dad badan ama shaqaha ku fogaato ama si kale mashquul ha u ahaadaan caloosha fariimo ay soo dirto inta badan waxay sameeyaan inay ismoogeysiiyaan taasina waxay dib u dhigi kartaa in saxaradii ay timaado oo waxaa laga yaabaa inay isu bedesho constipation ama uu yimaado sidoo kale uurka wuxuu ka mid yahay xaaladaha inta badan nugleeya in calool fadhi uu yimaado sababtoo ah hormoonada isbedelkooda ayaa qayb weyn ka qaadanaya sidoo kale dadka da'da ah ayaa iyaguna la sheegaa in calool fadhiga u nugul yihiin dadka inta badan ay saameeyo calool fadhigana ay yihiin maxaa lagu xali karaa kow inta aan soo sheegna waa inaad xalisaa waa inaad biyo badan isticmaashaa isticmaalka biyaha badan wuxuu ka saacidayaa in uu jilciyo saxarada taasoo suurto gelinayda in saxarada si fudud ay ku gudubto sidoo kale qofku inuu isticmaalo waxyaabaha xarkaha ama qolofta ku badan tahay sida dayaan usoo sheegnay kale dalagga dalkeena kasoo go'o kale miraha yani qudaarta waa inuu qofku isticmaalaa taasina waxay keenaysaa in saxarada la kuuso oo la aruuriyo lana jilciyo mindhicirkana ay u sahlanaato inuu dhaqaajiyo sidoo kale qofku inuu ahaado qof active ah exercise inaad sameeydo ama dhaqdhaqaaq inaad sameeydo waxay ka saacidi kartaa mararka qaar inaad mataqaanaa calool fadhigan aad ka daawoodo natural laxatives waxyaabaha la yidhaha qofku aad u isticmaalo ayaa la doonayaa sida aloe vera oo kale waxyaabaha saliidda oo kale aad caloosha u jilciya yaana waddankeena kale waxaa taalla saliidda la yidhaha saliid macsarada oo laga sameeyo baasha la yidhaha sisinta aad ay caloosha u jilcida qofka sidoo kale waa inuu aadaa markasto suuliga marka uu u baahdo waa inuu suuliga iska xaadiriyaa waa inuu biyo badan nacbaa qofka oo isku dayaa inuu caloosha jilciyo insha allahu tacaala qofka waxaa la sheegaa maalintii inuu 2 jeer ama 1 jeer ugu yaraan inuu suuliga aado ay tahay haddii intaas ay ka yaraato waxaa laga yaabaa isbuucii qofku inuu 1 jeer ama 2 jeer dhan uu kaaga sheekeeyo yiraahdo suuliga dhan isbuuc ma aadin ama 2 jeer ayaan aaday taasi waxay ka dhigan tahay qofkan wuxuu develop gareeyay constipation haddaba raac tilmaamooyinka aan kuu soo sheegnay haddii aad intaas in ka badan isku arataan dhakhtarka la xiriir si baaritaan dheeriya loo sameeyo inta ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena xaga caafimaad barnaamijkan lamid ah intaan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo mowduuca kan xiga waxaan ka hadli doonaa baabasiirka waxyaabaha sababa iyo sida loola tacaalo lambarka shaashada ku qoran
wixii tala bixinayso weydiiya asxaabtaan la wadaaga subscribe noo saara. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.